waxa aad dib u midaxsatay xasuus bariisamaadkii aad goobjoog u ahayd ama mid aadan dhalan oo lagaaga sheekeeyey. tani waa dhacdo khusaysa tuulada ciyaaraha Stadium Muqdisho idheeshii shalay Horseed iyo Muqdisho City oo ay soo daabasho tageen kumanaan taageerayaal ah. kulanka ayaa ahaa mid xafaaltan xoogan laga dheehanayay waxaana micno gaar ah u yeelayay in labada koox ay isku dhibco yihiin jeer horyaalku dhamaad yahay. kumanaan jamaahiir oo sacbatumaya labada koox ayaa soo buux dhaafiyay garoonka ku yaala warta nabadda iyadoo ay jirtay kuwa kale oo banaanka lagu celiyay markii uu ka buuxsamay lana waayay goob ay fadhiistaan. haddaba xiriir nuuce ayaa ka dhaxeeya kulankii shalay iyo kuwii qabsoomi jira bariisamaadkii. waxaan su'aashaas weydiiyay daaficii hore ee Batroolka Maxamed Cali Axmed Calas kaasoo ahaa shakhsigii shabaqa taabsiyey goolkii ugu horeeyay ee furitaanka bariisamaadkii ka dhasha garoonka Stadium Muqdisho. horta waa shalay aad u fiicneed dadka sportska ama ahaan jiray ma hadda ku xirno jecelna xoogaa niido kor u kacday baasha waxa waay aad ay xasuus badan ugu leedahay in shalay kale lagu xasuusto maalmihii la soo maray aan soo marin anaga marka waxa moodaa hadda xoogaa bisayl inuu ka yimid dadkii bacdama isbartiigii shalay kale ay dhacday waa jaanis goboladii dhacday saasoo kale maxaan ku yiraahdaa marmarna way dhacaysay laakiin haddii la helo sidii shalay kale taageerayaal maartay ciyaaraha taageera maxaan ku yiraahdaa horumar ciyaar waa la gaaraa furitaankii maalinta la furayaan la ciyaaray kooxda qaranka Shiinaha qaranka Soomaalida maxaan ku yiraahdaa intaasoo dhan isbartiibada maalinta u horeysana waxay noo aad farxad zaa'id noo aad mutaqaan garoon intaas la eego maanta ilaa habeenna la ciyaarayo maalin la ciyaarayo. Maxamed Cali Axmed ayaa sidoo kale ka barbixiyay xifaaltanka soo jireenka markii la eego kooxaha ku ardamaya hanashada horyaalka Soomaali Premier League oo shalay isku garba dhacay. aad iyo waa jirta xafidnakaas uu jiray oo kinayaashu waa ka dhaxeeyay anigu waxaan kusoo biirtay 20kii hortayna Horseed iyo Munishibi iyo Tabaarka iyo Jiin iyo wajir jiray gadaalan kala qabsanay waa soo dhex galnay marka dadku ugu taageero badan marka kooxaan Munishibi oo kale iyo Horseed oo kale iyo Jiin oo kale ay ahaayeen 7 oo xafidna ka dhaxeeyay dadku hadalada waxay u badneed bacdama labadaas kooxood iyo maartay xoogaa xafiltana iska jiray mugta oo askaraha dhexdooda iyo waxaan noo yimaadana niman oo Kenya Ethiopia iyo Yemen oo hogaaminaya Saciid Ducaali Ismaaciil Gariile Allah u raxmado labadaba. marka aad eegto dhinac walba oo garoonka ah kaliya waxaad arki kartay madax madow oo xitaa qaarkood ayaa ka daawanayay qayb aan ahayn fadhiga garoonka.